السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada maanta meesha waxaan isla arkaynaa night routine-kayga sidaan u maareeyo habeenka. Marka halkaana waxaan soo aaday casarkii supermarket-ka waxyaalo yar oo iga dhinaa cashi waxaas u rabaa inaan soo iibsado kadib waa isla arkaynaa marka xaafad isla tagno. Marka halkaana imaaday waxaan u baahnaa rootiga oo baagarka iyo waxaas laga sameeyo kama gaarin inaan sameeyo. Marka halkaana u soo raadsaday halka xabo waxaa ku jirta 6 xabo waxaana la gadayaa noocaas ma rabin noocan kala rabay oo xoogaha yar oo sisinta ee kor uga daadsantay kanaana jilicsan. Marka 6 xabo ku jirto xabada 6daas xabana waxa waa 125 shilin. marka waxaan rabay inaan soo qaato 2 xabo labadii xabaan meeshan soo qaatay waa kana waa iska fiirinaa inuu asaga yahay waxaa jira asagoo brown marka asagoo brown ma rabin noocaan rabay. marka halkaan aan fiirinayaa meeshan casirka hadaadan dhaqsi imaanin rootiga waa lagu kala yaacaa waa la dhameystaa hadda xilliga aday antiga waa 10 saac bar salaada casir kadib xamuda inuu eber yahay bacda العشاء hadaa tagdin waxa ma yaalanbo meeshaan marka fiirinaa chapati diyaarsana xataa halkaan yaalo waa kana midka brown-ka 127 shilin gadayaan meesha white kan ahna ay gadayaan 125 shilin. kadib waa soo baxay meeshaan waxaan u soo raadsaday cheese meeshaan ayu nooc yaalo laakiin aniga hal nooca rabay midkaan waaye waliba oo 300 gram ah rabay mid yar mid weyn uma baahneen oo mozzarella cheese-ka mozzarella ugu fiican waxay gadayaan 400 shilin. marka waa kana hadda waan soo qaatay weelkaygan ku soo ridanayaa waa isa soo raaceynaa meeshaan wali cheese-ka fiirna maalinka cheese-kaas gaduudan iyo cheese-kaas madow wax lagu sameeyaa ka fikiraa markasta guriga imaad waxaan dhahaa aabaartid bal sida loo isticmaalo waa hilmaama. kadib meeshaana imaaday oo macmacaan u yaalo maadaama casri iyo waxba aan ilmaha u karin waxaan rabay wax yar oo fudud inaan meeshaan gado midkaana fiirinaya xoogaha sweet almonds waxa ku jira laakiin qaali waa 6 xabo waxay gadayaan 220 shilin waxaan dhahay wallahi 220 shilin kama bixiyo. kana sidoo kale intaas oo xabo waaye adiga waa 12 xabo u maleynaa 350 shilin waa ka sheekeeya ukun iyo bur la isku darteen waxaan dhahay maxaa meeshaana marka waxaan arkay midkaan oo sale ku jiro oo discount ay ku sameeyeen xabadii waxay gadayaan 27 shilin aad uu u jilicsan yahay. marka waxaan dhahay midkaan iska soo qaado 27 shilin midkaana marka soo qaatay waxaan ka soo qaatay 2 xabo labada xabaan soo qaatay weelkayga isaga soo ridanayaa aad uu u jilicsan yahay keegan sida u sameeyaan awal waxay gadi jireen 180 shilin laakiin haddadaan meeshaan ay soo dhigayso macadisayla ku jiro wax walbo oo saas gees uga yaalo meesha alaabta lagu gado waxaa ku jira discount. marka intaana soo qaatay waan soo baxay waxaan kaloo u baahnaa salar meeshaana marka iska fiirinayay waxaan fiirinayay donutkaas meel agteen oo noo dhow waxaa la gadaa 400 xabo meesha 4 xabo waxay gadayaan 800 shilin yaab. kadib meeshaana imaaday salara u baahnaa maadaama aan rabo inaan sameeyo baagar oo iska fudud oo baagarka caadiga ahayn laakiin wax yar ka fudud salara meeshaan soo qaadanayay isaan u fiirinayay mid baan soo qaatay wixii dhan inta isku dardareena qaar yar oo yar halaabaya ku jira xataa marka inaad si fiican isaga fiirisid waaye. marka meeshaana hal xabo soo qaatay waan ka soo tagay meesha waxaa imaaday la ii xisaabinayay maadaama aan wax badan u baahnayn wax yar u baahnaa wixii meeshaan la ii xisaabinayay meesha xisaabaadka imaaday marka lacag 1,000 shilin ah u dhiibay qaarna waxaa ugu diray 500 camal MPS ugu diray marka waxaan dhahay inta kala kaash ahaan aan ku siinaa qaar ii soo celi marka hadda waxa ku soo adeegado dhan waxay ahayd cheese-ku 400 kuwaasoo 125 adi xoogaha lacag ay soo laabatay. marka meeshaan ku soo dhacay jiraan jarti waan soo baxay xaafadan soo aaday waxaan leeyahay intaan 12 la gaarin guriga orod ku tagay marka xaafada u dhawaa meeshaan waxaan arkay ninkan wuxuu ku keenaa kareeto liinta dadka meeshaan jooga way garanayaan meelaha kale meeshaan ka jaban. marka waa weydiinaya war xabada meeqa gadaysaa qaarna wuxuu gadayaa 10 shilin qaarna wuxuu gadayaa 20 shilin marka way kala size weeynaayeen midkaan 20 shilin marka soo qaatay 20 shilin u gaday adi wuxuu ugu dhahay 4 xabo waxa waa 100 shilin 4 xabo 100 shilin marka waxaan ka soo qaatay 4 xabo 50 shilin 8 xabo 100 shilin 8 xabo marka meeshaan soo qaatay
liinta ilmaha qaar waxaa jira aan jeclayn midda kale oo tan jecel waa la kala dooranaya liinta tanaana macaano aada u jilicsan marka meeshaana xaafada imaaday waxaan leeyahay intaadan jikada gelin oo casho kariyo aadan bilaabin dadkan casariyahooda iska siisid meeshaana marka keegi soo furay aada u jilicsan yahay keegka sonkor aada u badanna ma lahan marka waa kana sidaan usoo diyaariyey saxamahaanaan soo qaaday qof walba labadiisa xabaa raba inaan usoo saaro kaale iska arag marka waxaa le meeshaan maqrib yaa lagugu gaarin adoo jikadan ka bixin oo jikada iska nadiifino kaale iska arag ka dhigin marka videoga meel dheer hala gaarsiiyo liketa si fiicanaba noogu cimaamadan ilaaha idin karaameeyo liketa noogu dadaala sida noogu dadaashiin si kasii fiican biidnillaah ilaahay ka sokow la-aantiin waxba maana noqon lahayn sidoo kale comment iyo like iyo share subscribe dhammaan hanagula cimaamado weliba liketa noo muhiimsan videoga intaa daawanaysid liketa dhacdhac kusii insha allah marka waa kana hadda waxaan bilaabay inaan baagarkii soo kariyo maadaama uu bahalka ii diyaarsanay hilibka unbaan soo kariyey oon soo shiilay salarkiiaan soo jarjartay jiiskiina waa kaasa markaa saa u imaadaan jiiska jarjaray fridjkan geliyey waxaa arka jiiska markaa banaanka dhigtay intaa jarjartid oo intaa waxaa dhan hagaajisanaysid wuu isku dhegdhegaa laakiin haddii aad maxaa la dhahaa fridjka gelisid markaa kasoo bixisid saas wuu kala daadana ma fahanta cabirka kaama dhumaya xataa in yaroo qiyaas ayaa ku daree laakiin markuu isku dhegdhegan yahay adoo u malayna wixii wax yar inay yihiin xoogaha fiicanta soo qaadida ku dhijina jiiskii dhaqsuu kaa dhameena laakiin barafkan geliya markaasaan u jarjaro kadib markaasaas barafka u geliyo kaale iska arag wuuba ii kala daadana markaasaas usoo qaata shagaax waaye meeshaan sidoo kale waxaa isku soo daray sooska waxaa waaye mayonees iyo tomato sauce iyo waxaa waaye liin dhanaan iyo raqey intaasaan isku soo qaraacay maadaama aan degdeg ku jiray kama gaarin waxaasoo dhan inaa idin tuso waa iska garanaysid waqtiga horta meesha lagu gaaro casirkii wallaahi maqribsi lagu gaaro ma garanaysid adoo isla haddaa casir tukataa waxaa arkaysaa maqribkii oo la adimayo subxaan allah marka waxaan leeyahay maqribkiyaa lagugu gaarin intaan maqribka lagugu gaarin isboobsii marka meeshaana isboobsiinayaa waa kana marka hadadaan anigoo jiiskis kusoo daray waa aragtaa jiiskan baraf kasoo bixiyay iskuma dhegdhegan uu kala fafuujisan yahay sidaas quruxda badan uu kusoo baxay kadib waa kana anigoo soo dhameeyey labadii bacba waan soo hagaajiyey waxaan leey qaarna beri ilmaha a quraac uga dhigdida baaga ugu ridid marka waa kana weelkian soo qaaday waxyaroo saliidaan soo mariyey meeshaanaan kusoo safayaa ovenkina waa sii diyaarsaday marka waxaan leey ovenka hadduu ku kulul yahay rootigana waa karsanya hilibkana waa karsanya muhiimada maxaa waay inuu soo yaro qandaco jiiska gudaha ku jirana uu soo dhalaalo soo maaha intaas waa muhiimada marka hadda intuu iisoo karaayo meeshaan oodhara ii yaalay meeshaana waxaan diyaarin rabaa rose body scrub hal xabaa la iga soo dalbaday meeshaana isku soo dardaray wixii oo dhan marka waxaan leeyahay meeshaan aad soo hagaajisid shaqada aday ku taalaa hal mar jikada inaan ka baxaan inaan dib uga soo laabta ma rabo marka bahalkan rose body scrubkan wuxuu u fiican yahay faraha haddaad madmadow ku leedahay jilbaha jirka meelaha qaar madmadowga dhan wuu dhameeyaa wuu la dagaaltamaa madmadowga haddaa si fiican u isticmaashid marka qofkii u baahan nambarkeyga halkaasuu ku qoran yahay biidnillaahi alkariim marka waa kana hadadaan waanba soo hagaajiyey meeshaana waxaan rabaa inaan kusoo dhejiyo stiikagiisa rabaa inaan kusoo dhejiyo bacdiyaan kasoo fiiqay waa kana ana kusoo dhejinayo meeshaan lasoo xarbinayo wax qurux badan inaad dadka siisid waa samaaha oo indhaha deeqayo maasha allah tabaaraka allah sidaas quruxda badan kusoo baxay kaale iska arag lagama sheekeyn karo marka bahalkan madmadowga waxaasoo dhan uu la dagaaltamaa kadib waa kanaaba cuntadeena diyaaray noqotay ovenkan kasoo bixiyey maasha allah meeshaan waxaa leey aad soo diyaarisid aad soo kala qeybisid gacanta xataa kuma taaban karaan ku dheh intaan kala jaraan waxaan rabaa markuu yara qandac noqdaba xilligan hadda adiga 12 wax yariisa ka dhiman marka waxaan leey inta la casheena weelasha hore usii isticmaashana iska sii beeraaci ku kastoo lagu sii cunteeyna iska sii dhaqi iyo weelasha cabitaanka iyo waxoo dhan marka ilmaha jikada ka bixinaysidba adigana waxaan la dhahayaa shaqaba kuuma taalabo waxaas waxaa la dhahaa howl fududees kaale iska arag marka waa kana bahalka sidaanu kusoo baxay waxaan ku dheh lagama sheekeyn karo waa baagar iska fudud casho fudud waa weliba hadaadan rabin wax adag inaad karisid marmaraa lagu tuuraa ani hadda maanta oo kale casho igamahin inaan kari cabaara ka fikira maxaan karisaa haddana waxaan dheesaanaaba kuu fududa baysaan samee maalin kasta ma cunto culusaa karin kartaa iska daba wareegan kartaa ilaahay baa ku lehay marka kaale iska arag sidaanu kusoo baxay saasuu u qiiqayaa
laakiin dhib malaha markuu yara qandacabo waxaa laleeyahay wakaaye ilaahay ha barakeeyo, intaa haysan ilaahay ha siiyo. kadib qolka ilmaha meeshaan soo galay, sariirahoodii aan usoo hagaajiyey maadaama ay maqrib taho waqtigii la seexan lahaa yahay, dadkaana daalan yihiin oo maxaa la dhahaa saagsi dugsi loo aada tahay. marka qabeesa hadda la galayaa, dharkii la xiran lahaa waa kuwana waa soo diyaarsanay, cadeygoodii, kareenkoodii, waxoodoo dhan waa diyaar. marka meesha maqrib lagu tukado waxawaaye ha lagu kala yaaco. kadib meeshaan hadda ilmihii waan soo seexiyey, waqti dheer kadib jikadaan kusoo laabtay. hadda xilligan cisho weli lama gaarin, waxaan rabaa meesha inaan sii diyaarsado weelashii biri aan baaga ugu ridi lahaa. ani waxaan jeclahay habeenka inaan sii diyaarsado dharkooda, weelashii quraacda loogu diyaarin lahaa, wax kasto si subaxaagii maxaa la dhahaa gabgab iyo maxaa la dhahayo waqtiga uu kaaga dhamaan. adigana habeenkii markaa isii nidaamisid waa adigana waxaa kuu fududaanayo subaxaagii siduu ku bilaabanayo. marka weelasha daaimkaan dugsiga ka keenaan soo qaaday, hadda waa iska soo dhaqay, waa iska soo biyo raaciyey, waa kuwaana waa soo tirtirayaa, halkaasi ii yaalayaan. beri subax markaasaan usoo kaca haduu ilaahay nafta baaqi nooga dhigo, wixii u diyaarin lahayd le u diyaarinay. weelkii raadi, furkii xaguu ka baxay, galaaskii aawe, kii kale aawe maba jirtabo, iyo bacdi loogu ridi lahaa, wixii dhan meeshaas ay ku yaalayaan. waa ku ridride, shaqadaada waaba isku soo dhamaataba. marka waa kuwaana hadda anoo saan usoo tirtiraayo, daboolihina waan soo tirtirayaa. kaale iska arag, halkaasi ii yaalayaan, waaba laka saabo, waa weelasha beriyaa lagu leeyahay, weelasha beri. galaasyadan waa kuwaasa. marka weelkii aan biyaha ugu shubi jiray cabitaankii waxaas labada weelo isku ekaa wuu ka jabay. marka waxaan leeyahay bisha markay dhamaata mid kale usoo gadid. marka kaasaan ugu shubaa, labadaas galaasoo yaryarna waxaan ugu ridaa meesha, sababtoo ah way yaryihiin ilmaha. haddana waa lala fiiriyaa cuntada, oo qof waxaa jira la jooga intay cunteynayaan oo wax kasta la ogaanayo. marka dhib malaha, laakiin bisha markay dhamaatay insha allah 2 weelaan usoo gadaa. dhulkuu ku dhacay waaba kala jababo, hal xabaa soo haray, halka xabana sidoo kale asagana waaba kala jababo. marka sidaas waaye. kadib hadda waa kana weelasheena diyaar waaye. sidoo kale meeshaan waxaan soo bixiyey liintan subaxiyaa miiraa, fridjkii ku jirtaa. marka subaxi waa qabow, lama miiri karo. habeenkii oo kale banaanka iska soo dhigaa, si subaxi markii la miiraayo ama aan miiraayo uuga maxaa la dhahayo qabow uga dhamaade. kadib meeshaana hadda waxaan soo diyaarinayaa dharkii beri la xiran lahaa. jaakadihii waa kuwaana waan usoo diyaariyey subaxi maadaama uu qabow jiro, waa in jaakada lagu baxo. sidoo kale surwaalihii, fanaanadihii, wixii oo dhan, boorsooyinkooda, weelasha cuntada ku cunaa, wixii oo dhan ani wixii aan beri qaban lahaa kala bar habeenkii intaana seexanaan sii qabtaa. sababta waxaan arkay subaxi wax raadisaaba waqtigii kaa dhameynayaa, laakiin habeenkii markaa sii diyaarsatid subaxaagi si qurux badan kugu bilaabanaya. hadaa quraan akhrisanayso, hadaa adkaar akhrisanayso kama mashquuleysid, laakiin marka kale waa ka mashquuleysaa. marka videogeeni intaanu ku egyahay. fii amaanillah, waa isku soo nabad laaban doonaa. comment, like, subscribe iyo share iyo dhammaan yaa nagala hilmaamin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye.